anigoo ku hadlayo afka beesha gaaljecel suldaan qarab waxaan rabnaa tacsiyo inaan ku wareejino odayaasha guddiga qabanqaabada tacsiyada ogaas xasan ogaas khaliif tacsiyadaas waa geel 13 neef ah beesha gaaljecel ayaa maanta 13 neef oo geel ah waxa ay ku wareejiyeen guddiga tacsiyada ee Allah u naxariistay ogaas xasan ogaas khaliif guddiga tacsiyada ayaana ka gudoomay beesha gaaljecel geel ay maanta ku wareejiyeen waxgarad iyo odayaal ka soo jeeda beesha gaaljecel ayaa ka hadlay goobta geel ay ku wareejiyeen tiraayay ugu direynaa ogaas xasan ogaas khaliif ogaas roble ogaas xasan wuxuu ahaa ogaas Soomaaliyeed wuxuu ahaa ogaas Hirshabeelle wuxuu ahaa ogaas reer Hiiraan wuxuu ahaa ogaas reer Beledweyne dhammaan Soomaalidii iska baxay sabri iimaan Allah naga siiyo gaar ahaan qoladii hoosos ka baxay Ilaahay sabri iimaan ha ka siiyo asagana Ilaahay kitaabkiisa midig ha ka siiyo intaas markaan ka gudbo anigoo ku hadlayo afka beesha gaaljecel suldaan qarab waxaan rabnaa tacsiyo inaan ku wareejino odayaasha guddiga qabanqaabada tacsiyada ogaas xasan ogaas khaliif tacsiyadaas waa geel 13 neef ah tacsiyadii ogaas xasan ma aha 30 neef ma aha 20 neef ma aha waa yar tahay laakiin duruuf jirta awgeed iyo tacsiyada odayaashoo yimaado gacan qabsi aan wadanaan xoolaha laga xishooda gacan qabsi waayo in laga gadoomaan rabnaa hadduu alla idmo walba way dhimanaysaa ilaahay waxaan ugu baryaynaa ugaaska dhintay qabrigiisa nuur iyo baraka Allah ka siiyo wixii iska tagay wax baraka Allah ka dhigo beeshana kor Allah ka dhigo wixii dhibaan Allah ka qabto intaas waa salaam inta kala anaga ogaas noo ma joogo islaam waa nahay ana boqortooyada matalaya islaam waa nahay ana ogaas ma ihi إن شاء الله بقرتويدا بكرسيgeeda ayaan matalay in sha Allah ilaahiira marka sida suldaanku u sheegay taasiidaas aan wadnaa xubno kamida guddiga tacsida oo madasha ka hadlay ayaa uga mahadceliyay beesha gaaljecel sida ay uga qayb qaateen hawsha tacsida waxana ay sheegeen inay ka gudoomeen geela aad iyo aad u mahadsantihiin waxa aad noo keenteen oo geela 13 halaad ahne waad ku mahadsantihiin ugaaska xanuunsan waxaan leenahay hadaan nahay beesha xawaale waan u duceynaynaa ilaahay inuu caafimaad taama siiyo in alla intii beesha gaaljecel ah oo saamaheeda noo soo qaaday iyo inta meesheeda nooga soo tacsiyeysay aad iyo aad u mahadsantihiin walaalayaal waa waxaan idiga filanaynay wax maaragtay maanta idigu faana ma ahan waa waxaan u wada dhalannay in qolo walba qolada kale markii wax gaaraan ay gobasha u dambayso ee ayada ahaato ay u tagto ay u tacsiyeyso oo wixii karaankeeda ay ula tagto waa xaqan isku leenahay oo u wada dhalan se muuqato macna ku fadhido mugle miisaan le waxa maanta noogu yimid walaalaha beesha gaaljecel waa taqaaniinaan u malaynaa doqonna loo sheegi ma nin wax gartaayna asaaba og gaaljecel waa xawaadle حوالنا وقالجعل حوالنا يا قالجعل هل دون إسلا سارين إلا قيامه كدعانا وإسلا جوغان هدي الله يدمو كلمة قور كرنو جيدي كلمة أهين وإسلا دلاني دول كان الله نوضا مكاني ما أنت قالجعل وحو نوكاني جيل موقضو ومقعله وصدح يتبنف جيلاس واكا قدونان لنهاي واكا قدونان لنهاي walaalaheen waajibkii iyo sidii lagu yaqiino waa ku yimideen odayaashoodii waxgaradkoodii culimmadoodii ayagoon kala harina waa loo yimaado suldaan hadday lahaayeen iyo hadday sadiiq lahaayeen iyo hadday oday lahaayeen dhammaan waa noo yimideen si muuqato oo mugle waxaad noo keenteen xoolo badan xoolaha iyo madaxa qaalisan sida bini aadamku yaqaan xoolaha maaha xoolaha waxa ka qaalisan horta in lagu xusiisto nimana maal waxaan u keenay soddon ariya badan asay waxay soddon ariya ma kala gaarto laakiin xusiistana kala gaarto in noo timaadaan taasida naga soo qayb gashaan dadka waliba aad u dambeystaan is uslaysaan
geel la keenay geel u badnaad keentaan waa idinka mahad celinayaan waan idin kala wareegin